asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. soo dhawaada dhammaantiin meel walbaa joogtiin iyo xilli walba iyo waqti walba ay ku tahay buu kusoo dhawo barteen mk skills one. haddaba haddii ay tahay markii ugu horeysaana soo booqto badnaa halkan subscribe dheh. sidoo kale waxaa kusoo biiri kartaa barteena telegram soo mk skills one. labadaba linkiga qeybtaas waxaan ku dhigi doonaa ee descriptionka. halkaas ayaa ugu soo biiri kartaa ka heli kartaa ciwaankeena telegramka. sidoo kale halkan waxaan ka codsanay inaad subscribe dhaada nagu dhiirigeliso inaad like saato si ay dad badan oo cilmigan u baahan si free ay uga faa'iidaystaan. بتعلمني وبتنسى يا بابا اللي قلته، وانت القدوة يا بابا وانت المثل الأعلى. ما تزعل مني يا بابا يا عيوني وأغلى. soo dhawaada dhammaantiin waa mar kale iyo muuqaal cusub. hadda waxaanu halkan ku duubaynaa waxa la yidhaahdo falanqaynta isbuuca setup-iska sina u aragno isbuuceena soo socda, maadaama uu u baahan yahay isbuuc walba waxa la yidhaahdo inaad samaysid refreshment iyo maaragtay isbedel si aa ugu diyaar garoodid isbuucaada inuu ahaado mid wanaagsan iyo inuu ahaado mid kugu xumaada. waxay qeyb ka noqonaysaa inaad maalin walba axada aa samaysid maaragtay suuqa halka loola jirsan karo maalmaha soo socda iyo tiriidadaada maaragtay sidaad ugu sii diyaar garoobi lahayd. 50% waa qeyb ka mid a inaad suuqa maalin walba u diyaar garoodid. waxay kaa saacideyn doontaa oo axada inaad noqotid qof consistency leh oo suuqa si joogto leh maaragtay uga warhaya una joogo. so sidaa daraaddeed waxaan halkan marka ku duubaynaa waxa la yidhaahdo falanqaynta isbuuca weekly forecastingka. so waxaan rajeynaya inaad dhammaantiinba aad maaragtay muuqaalkana waxuun ka faa'iidi doontiin. sidaa ogsoontihiinba haddii aan horey u bilaawno falanqaynteena waxaan ka bilownaa lacagta la yidhaahda dxy, maadaama ay tahay lacag aan inta badan ku bees garayno mise uga maaragtay fikir qaadano lacagaha aan markaas trade garayno. haddii aan lahayd euro usd iyo AUDUSD iyo USD adigu lacag walba markaas doolarka ku lifaaqan si aan maaragtay ugu bees garayno. haddaba maanta falanqaynteena waxaan samayn doonaa inaan dxy daily ilaa iyo maaragtay 4 hour ilaa 1 hour ilaa 30 daqiiqa aan maaragtay iswaafajino si aan tradeyo badan oo macquula aan uga wada helno hadduu eebaa awoodda la idmo. marka dhammaantiin waxaan rajeynaya inaad u diyaar garoodeen oo aad xiise u haysiin oo aad maaragtay aad muhiim u arkeysiin. si marka intaas aan u sameyno waxaanu hadda ka bilaabeynaa lacagta dxy. dxy sida ujeedinba waxaan joognaa dayligeeda. maalin walba waxaad anugu sinayaa sameeyaa. soo maalinka dayliga markaad tagtid waxaad sameynaysaa time frameka dayliga horta ayaa xaqiijin doontaa waxaa la yidhaahdo isheeg siduu ku socday. soo waxaa ujeedaaba tusaaloo kale halkaan in suuq waxaan markaa dayliga joogtid uu isku noqonayo waxa la yidhaahdo correction yar oo maaragtay suuq meel uu maaragtay uu ku rafrafanayo uu egyahay all the way maaragtay waxa la yidhaahdo all the way inuu movekan upkana uu maaragtay uu up trainka yahay. soo kana bull backtiisa inay tahay ayaa wada jeedaa intaan andan wixii kale oo dayliga kasii feelings waxaa waaye so all the way inuu upkaas move kale oo sii aada u dhaco oo sidaas oo wax u ekaadaan. sidaas markas aa u xaqiijisid oo fikirkan oo ah meesha anugu ka keenayba wax kale ma ahan waxaa waaye ishaag waa dayligan wax si kale loogama keenin. movekan korka u socda bull backtiisiina ay kan tahay ayaa kan waxaan fiiriyey inaan u yara jeeday korkiisa ugu sarreeyey oo ahaa meeshan kore oo la yidhaahdo waxa loo yaqaano higher high. sidaad ujeedidba ay tahay maaragtay higher high. sorry trading viewga wax yarka yara babedelin. soo waxaa iga baxay waxyaabihii ii seef garaysnaa. soo hadda ayaanu sameyneynaa dhib male. soo halkan waxaa ujeedii mise iska dhaaf haddaan barabtanaa isticmaalaynaa. soo waxaa halkaa ujeedaa inay higher highga ugu koreysay tahay, halkan kalena inay tahay waxa la yidhaahdo hoostiisii halkan ka hooseysay. korkaas hoostiisiina inay halkan tahay ayaa ujeedaa. sidoo kale kana hoostii kasii hooseysay inay tahay ayaad ujeedi kartaa. halkan kalena inay kor kale tahayna waa ujeedaa hayadana. mar haddaa laba higher high heshid iyo laba maaragtay hoostiisii ahayd waxay ka dhigan tahay in aad jihadaas markaas aa heshay. soo jihadan oo ah aftareenkii koowaad oo korkan sidaas u socday
waxaa ujeedaa in la gebagabeeyey oo meeshan ay tahay meel la dhamaystiray oo maaragtay suuq uu maaragtay uu dhamaystir inay tahay ayaa ujeedaa. one minute waxaa ujeedaa halkan inay tahay suuq inuu maaragtay ay tahay meel uu dhamaystiray. dhimale waxaa ujeedaa halkan marka inay tahay hoostii ugu hooseysay. So hoostii waxaa ujeedaa in la soo jebiyey oo ay tahay dhaqaaqan waxa soo jebiyey. So markii hore fikirkeena wuxuu ahaa inaa haysanay ii sheeg waxa la yidhaahda waxaan dhan inay isla yihiin masiinada muufkaas waa week iyo markaa isla fiirsid, laakiin haddana dheyligaan ku bees gareynaynaa. dheyliga waxaa ujeedaa in hoostii lasoo jebiyey oo kan uu muufkan soo jebiyey. andan muufkan wuxuu sameeyey markuu soo jebiyey hoostan, halkan waxay noqotay new lower low oo hoostaas ka hoos martay ayay noqotay. andan suuq waxaa ujeedaa inuu halkan u noqday oo halkan uu tegey. andan halkaas markuu tegay handala waxaa ujeedaa inuu hoostan yimid oo ah halkan inay ka hoos martay. saa ujeedid ba calaamadaad aragtid oo ah halkan in halkan laga soo hoos maray ayaa ujeedaa. So it means haddaa heshid in hoostaadii mar la jebiyey, tanna waxay kuu noqonaysaa waxa la yidhaahdo new lower low. new lower low ayay halkaana kuu noqonaysaa. lower lowgan korkiisana halkaan ayay kuu noqonaysaa. allahuma salli calaa maxamed. intaa markaa isla hesha handala waxaa ujeedaa in isla halkii korkii oo halkaan ahayd in handala waxaa ujeedaa muuf kale uu kasoo daba yimid oo dheyliga ah. handala uu meeshaan la asturay ayaa ujeedaa. saa ujeedidba oo muufkan oo halkaan ahaa in la dhameeyey ayaa ujeedaa. wax kalena ma dhameynin, muufkan ayaa dhameeyey. haddaba marka handala aragtid in trendigaadii laga sii dulmaray, korkaadan laga kormaray, waxay ka dhiganta haddana inuu suuqu kala wareegay. So haddaa aragtidba marka in korkaada handa la kala jebiyey, ma dhigi kartid hoos kale ayuu suuqu sii soconaya. waxa u oleynaysaa mar kale in handala suuqu abtaren uu noqday. abtarenkaas ayaa handala waxaa kasii dhacay korkan oo halkaan ahayd wuxuu samaystay potential maaragtay hoos kale ah oo halkaan ah. hoostan markuu samaystay waxaa ujeedaa dheyliga korkan inaa weli lagu dhaafinin. So it means marka aragti korkan inaan lagu dhaafinin ma ku bees gareynaysa tareedidaada, ma dhigisugu korkan kor ha la dhaafo andanna siina kale ha dhacdo kadibna tareed ayaan saa ku helaya, ma dhigi kartid. oo waxaa laga yaaba fursadda halkan qof ka soo raacay mise halkan qof ka raacay in handala jaanis kale ay adag tahay in meelahan kaas siiyo. sababta waxaad balaan garaynaysaa in korkan la jebiyo mise hoostan lasoo jebiyo hoos dhoonkiisa suuquu sii socdo. so it means markaas sidaas ishid waxaa sameynaysaa fohawarkaadii baa markaan tegeysaa. fohawarkaadii markaad tagtid wax kale ku bees gareyn maysid mise wax kale ka raadin maysid. waxaad leedahay ignore garee halkan daily waay waa meel aan hadhootidii aan rabo in lii jebiyo oo aan balaan garaynayo. halkaana waa potential oo official ma ahan oo hoosta korkaan nasiinadeedii waay. so fohawarkaad tegeysaa. fohawarkana marka waxaa ka tegeysaa trendiga markaas jiro. so muufkan fohawarkaa la dul tagayna. fohawarka marka waxaa ujeedaa halkan inay marka tahay waxa la yidhaahdo isheeg inay tahay isheeg higher high, hoostan kalena inay tahay higher high higher low, halkan kalena inay tahay waxaa ujeedaa higher high kale inay tahay. and then dadku waxay ka faa'iideysanaa intaa dhan waa muufkan muufintuu ka sii hooseeyey. so kan fohawarka oo labada xabaan ka dhignay asaga ayaa one hourka la sii tegi kartaa. marka one hourka la sii tegtid kan oo hal muufaha iyo kan oo hal muufaha asaga ayaa waxaa ka sameynaysaa intaanoo muuf. waa kana one hour oo higher high aa helaysaa, lower lowgiisa ayaa helaysaa, handale higher high kale oo korkiisaas ayaa helaysaa. sidoo kale handale mar kale waxaa helaysaa lower higher highgaas higher lowgiisii oo ahaa korkan hoostiisa ah haddii afka soomaaliga laga dhigo. handale waxaa kasii helaysaa muuf kale halkan kusii jiro oo 30 daqiiqa oo one hourka ah, laakiin 30 daqiiqa si toos ugu saari kartid, laakiin one hourka zaaid usii muuq. so halkan oo fohawarka isla ahaa waxaa kusii dhex jiro 1 2 3 muuf oo kale kusii dhex jiro. waa sidaas ayuu iskugu sii dhex jirjiraa suuq. kan kale sidiisoo kale asagana waxaa arki kartaa inuu halkan kale ku jiro one hour higher high, one hour lower low, higher low, one hour higher high kale, one hour lower highgan, higher lowgan oo korkan hoostiisa ah,
iyo korkan kale oo ah mid kasii sareeyo iyo hoostan oo ah meel oo kasii hooseyso kaas kale and then iyo korkaas kale oo ah mid kale even xagga xataa mid kale ayaa kusii jiro markaas saas dhahdid maadaama aragti suuq inuu kan dhali samaysto uu meesha ku nastay and then waxay ka dhigan tahay in mid kale uu kusii jiro walo uu aad u kala baxsanay laakiin 30 daqiiqo oo kale markaa la tagtid tareen saxa ayuu ahaan doonaa soo halkan waxa uga jeedaa halka muuf ahaa 1 2 3 4 kale kusii jirto soo kan haddaa 30 daqiiqo la sii tagtid intaan yartaa dhexdiisa ayaa waxa ku jirayso tareen kale tusaale saan haddaa 4 hour u tagtid waa 30 daqiiqo u tagtid sorry kan naftirkiisa wuxuu noqonayaa fiir inta tareen oo kusii dhex jirayso wuxuu noqonayaa halkan ii sheeg waxa la yiraahdo higher high higher low higher high higher low higher high higher low higher high 30 daqiiqana sidaas ayuu noqonayaa so it means waxay kaaga dhigan tahay inaad qofku uu mar walba uu wax rabaa isticmaal istiraatiiji inuu trendiga fahansan yahay waxay ka dhiganaysaa mise ka saacideynaysaa inuu u dhowdahay mar walba inuu fursad create gareeyo mise fursad uu oleeyo oo aagiis uu ka raadiyo si uu sababtoo markaa trendi heshid iyo suuq meel loo socdo ayaad fursad qiimeyn kartaa fursadna heli kartaa fursadna maaragtay u dagaalgali kartaa raadin kartaa laakiin haddii trendigan aad haysanin meelaha ka bilowdid waa kugu adkaan doontaa soo one hourkeenaan dib ugu soo noqono maadaama aan rabno in aan one hourka aagiisaan aan wax ka raadino one hourkeena aan kusoo noqono intaan markaa isla aragtay labada move oo 4 hourka ah waxaad dhahaysaa halkan suuqa uu ka tegey meel oo supply ah ayay ahayd okay meel oo supply ah bay ahaydba okay meel oo demand ah ayay ahayd sorry afka rakhaldoomay meel oo demand ah bay ahayd supply waxaa waaye suuq markuu seyr u socdo meeshu ka soo daatay laakiin demand waxaa waaye meeshuu markaas suuq uu ka kacayaa la yidhaahdaa sidaas waay soo meeshaan meel waxay ahayd suuq ka kacay demand ah soo demandkan waxaad leenahay waxaan ololeynaynaa inuu uu kor aado soo korkaas uu aadayo waxa la yidhaahdo oo 1 hourka movekan soo hoostan yimid oo meeshaan imaaday ayaan qiimeynaynaa 1 hourkiisa okay 1 hourkiisa aan eegna bal 1 hourkiisa aan tagna 1 hourkiisa marka waxaa ujeedaa okay 1 hourkiisa waxaa ujeedaa kan oo ah kanaa kasii dambeeyey okay okay so kan marka waxaa ujeedaa oo hoostaan ah aawe oo hoostay u dambeysaa oo halkaan ahayd in suuq waxaa ujeedaa uu kasoo hoos maray okay movekee kasoo hoos maray midkan ayaa kasoo hoos maray kan ayaa kasoo hoos maray kan markaa aragtay mar alla inuu halkan hoostan jabiye uu kasoo hoos maray asaga waa sugaysaa bullbacktiisa and then waxaa sugaysaa moveka labaad inuu dhaco oo ah halkan soo mar haddaa heshid low laba ah iyo labaha siinadooda isminis waxay ka dhigantaa trendigan waa isbedelo oo halkan oo ah halkan kan ayaa movekan ayaa soo jebiyey isminis kan kalena waa saameyn oo predicti ah wixii kan ka dambeeya markuu imaado hoostaanasna sii jebiyena waa tareen sax ayaa haysataa markaas soo kana hoostiisii nasiinada halkan ayay ahayd hoostiisii kale oo kasii hooseysayna halkan ayay ahayd nasiinadiisana halkan ayay ahayd hoostii u hooseysayna halkan ayay ahayd okay and then intaas markaa heshay suuqan weli waxa uu oleyna one hourkiisa waa abtareen ma dhigi karno sababta oo maalintii halkan la jebiyo ayaa suuq waxaa dhigi karnaa waa abtareen oo one hourkiisa okay kan waa one hour soomaa in movekan halkan imaaday soo 30 daqiiqa isla tageyna 30 daqiiqo wuxuu ina tusayaa aragno soo 30 daqiiqa arkayna one hour wax ku dhex jiro waa 30 daqiiqo 30 daqiiqo waxa ku dhex jiro waa 15 waxa ku dhex jiro waa 5 yani trendi ayaa ku dhex dhisan ma fahan marka soo waxaan eegaynaa one hour ka wax ku dhex dhisan soo one hour ka wax ku dhex dhisan lower low lower high and then lower low and then lower low kale and then nasiina yar oo lower high-giisa and then lower low and then lower high okay
soo maskaxda ku hay kan weynka wuxuu ahaa aan ku yidhi 1 hour movekan meesha lagu yimid wuxuu ahaa 1 hour so 1 hourka dhexdiisa waxaan ka raadinaynaa aan ku idhi ii sheeg sorry 1 hourka dhexdiisa waxaan ka raadinaynaa aan ku idhi ii sheeg waxa la yidhaahdo 30 daqiiqo 30 daqiiqo waa helnay korkiisii hoostiisii saas ayay noqon so korkaas iyo hoostiisa oo u dambeysay ayaa arkaynaa so waxa ujeediin hoostii iyo korka ugu dambeysay labadaan ayay ahaayeen muujeedido kan so marba haddaa intaas aragtay it's enough 30 daqiiqo waxaad leedahay in la jibiyey in kale ayaad eegayna okay halkaan ayaa calaamadeen deynayna hoostiisa so halkaan marka suuq wuxuu kusoo socday waxa la yidhaahdo sheeg higher high even the kan upkan waaye higher higher low higher kale kan ma jibinin weli so all the way waa kan higher kala and then higher low and then higher so intaas markaa heshiiso waa 30 daqiiqo 1 hourkaadii waa kan koro waa halkaan kore so 30 daqiiqo waxa ujeedaa in la dhammaystiro oo la jibiyey even kan xitaa waa lagu dul xirmo waa la jibiyay asaga xitaa so mar haddaa aragtay in intaas ay dhacday oo 30 daqiiqa sidaas loo galay waxaa markaan oo online kartaa 30 daqiiqa ayaa la jibiyey laakiin 1 hourkii weli lama jibin laakiin maxaa saadaalinaysa 30 daqiiqa haddii la jibiyey 1 hourkan in la jibin doono so korkaan ay samaystay nasiino samaystay korkaan ay samaystay nasiino samaystay korkaan ay samaystay nasiino soo samaystay meeshaan hadda waxaad u oleynaysaa inay maaragtay meel demand zone ay ku noqoto and then demand zonekaas uu ahaado maaragtay meel hadda suuqu intuu halka imaado uu ada confirmation ka bixiyo uu all the way u oleyn inuu noqdo suuq korkaas sii aaday oo ah meesha aan rajeynayno ah in korkaan kaloo 1 hourkana lasii jibiyo ah iyo maaragtay in movekan kale oo maaragta asna 30 daqiiqa ahna la jibiyo asagana meesha laga saaro ah si suuq marba hadduu tan koros jibiyo waxay ka dhiganta inuu korkaas sii socdo hadduu kan jibin waayo meelaha ku meeraysto ismiid waxay noqonaysaa suuqu inuu uu maaragta rajeynaya inuu hoostiisa hoose iska sii aado maaragta dhulkiisa hoose uu sii jabsado marka dhigis waay fikirka guud ee dayliga 4 hourka 1 hourka saas waa dayligiis waxaa ujeedaa inuu maaragtay uu ii sheeg uu suuqu maaragtay uu yahay mid hoos dhown tareenkan iyo waxaan rabo inuu uu meesha ka saaro ab tareenkiisa sii wato inay saas ahaan weyda waxaa dhici karta ay noqoto 4 hourkiisa inuu uu raaco 4 hourkiisa uu raaco maaragtay uu noqdo waxa la yidhaahdo ii sheeg ab tareen iyo inuu noqdo in maaragtay dayligiisa uu sii ahaado maaragtay dhown tareen so mar walba waxay ahaanaysaa time frameka kore biga pictureka guud ee markaas kusoo wajihi kara mise suuqaada saameyn kara ayaad fikirka qaadanaysaa so maaragtay time frameka hoosena wuxuu kaa saacidayaa inaad intiri heshid intiri ka geshid stop losskaada ku manage garaysid all the way waxaasoo dhan ayuu kaa saacidaya so yaa fiican baa dhahaysaa marka time frameka guud iyo time frameka hoose so midba midka kale ku xiran yahay kan kore haddaa haysatid waad garanaysaa meesha maaragtay loo socdo fikir badan iyo walwal badan ma ku waayanayso haddii uu maaragtay ku khilaafa tareedkaada ka hor imaadana waxaad ogtahay sidoo kale inaad time frame yar soo isticmaasho oo time frameka guud aad maaragtay meesha ka saarta laakiin time frameka hoose wuxuu muhiim u yahay fursad ayaad dhisaysaa anytime fursad ayaad mar walba maaragtay meesha aad ka creator garanaysaa adduunka shaqo walbaa qabanaysid qeybteeda creatorka haddaad haysanin wax dhadhamayo ma jiro wax oo ku saacideynayo oo aad uga helaysa mise aad maaragtay aad dhehaysa shaqadaas ayaan maaragtay aan ku yara dareemaya wax feeling oo maaragtay yani wanaagsan ma jirto sababtoo marka tradingana markaad joogtid waxaa qasaba inaa maanta dhan fursad dhisi kartid fursad maaragtay aad keeni kartid soo si aad hami badan iyo kii badan aa weysid so higher lower time frameka asaga saas ayuu muhiim asaguna ku yahay time frameka guudna waxaad noqonaysaa qof informationkii dhan baxayo maaragtay aad meeshaas ku arkaysa okay USD haddii aan tugno hayada waxba ku daahimayna maadaama ay DXY ay tahay lacagta aan mar walba ku salayno lacageen inta badan sababtoo USD AUD USD USD kan JBB USD onta waxa ujeedaa 4 lacagood
mise 5 lacagood ay saameynayo lacageena ka mid ah. So wixii kale oo meesha noo soo raaca waa iska kii. So intaas haddii aan ku saleyna information guud ahayda ka heshay intii aan maray iyo sidaa u sameeyey ayaad u sameyn kartaa adoo maaragtay u baahnayn inuu qof kale kuu sameeyo. So USD lacagoo doolarku markaas uu hore u dambeeyo DXY sidaan u falanqeynay bilcagsigeeda waa kuwa u horeeyana waa sidaan u falanqeynay ku farshax noqonaysa. So wax difference weyn oo maaragta u dhaxayn karaan ma jiro meesha. Insha Allah USD ayadana waxa ujeedin waxa la yiraahdo 4 hour-keeda waa iskaga oo ku soconayna oo ku dhaqaaqsanayna maadaama waqti badan ay naga qaatay DXY. Marna trendiga dhan kaligiis hadii la wada falanqeynaya waa la wada fiirinayaa halkii lacag waxay qaadanaysaa 30 daqiiqo 40 daqiiqo. So laakiin adi waqti si ku base garee waxaa si aad maaragtay aad wax cajiib aad u aragtay ma fahant. Marka DXY waxa ku yiri 4 hour-keeda uptrend ayuu ahaa. So kanne hour-keeda wuxuu noqonayaa isheega down trend wax oo bilcagsi isku kala noqonaya waa mar walba. So ayadana waxa ujeedin USD ayadana down trend ay tahay. Okay muxuma down trend-keedaas waa aragnay. Maxaa halkan ku jira 4 hour-kan dhexdiisa ayaa inta 1 hour ku jirta ayaan sii arkayna. Okay 1 hour-kan tagno 1 hour-ka waxa ujeedaa in halkan uu yahay maaragtay higher low halkan kalena higher high halkan kalena higher high ya halkan kalena higher low ya halkan kalena higher high yahay halkan kalena nasiinadii ay tahay all the way abkaas inuu suuqu u sii socdana aan predict gareynayno haddii ay systemkeena inoo waafaqdo oo ay maaragtay aan cajibiso aynu ahaan doonto trade aan sidaas ku qaadan doono. Okay so 1 hour-kii ugu dambeeyey waa kana 1 hour-kii ugu dambeeyey oo ah hoostaan halkan iyo ah korkan kale ayaan waxaan ka dhex raadinaynaa trendiga in la dhameeyey iyo in kale maaragtay 15 minute-kiisa. Okay 15 minute-kiisa ayaa eegaynaa 30 daqiiqo ayaa eegaynaa. Okay okay waa kana kii hoostiisa ugu hooseysay kan waa fog yahay waa kana waa tan hoostii ugu hooseysay waa tan korkan markuu halkan yahay. Okay nasiinadiisa kalena waa tan. Okay so halkan waxaa ujeedin marka calaamadan kalena saaratid in hoostan all the way laga soo hoosmaray laakiin waxa ka soo hoosmarayna inkastuu uu eegyahay trendi yar oo xoogaa soo yara daalay laakiin waa isla fiirinayna asagana sidoo ku dhamaanay. So halkan lower low waay lower high waay halkan kalena waa lower low halkan kalena waa lower high nasiinadiisa halkan kalena waa lower low kale. So intaas markaan aragnay waxa ujeedin hoostaan markaan aragnay in la jibiyey. So 30 daqiiqo wax oo maaragtay ka duwan ma ujeedin oo down trend-kaas ku sii soconayo ayaan arkaynaa sababtuna wax kale ma ahan. So trendi mar wuxuu isbedelaya markii laga hor imaado. So trendiga hadda waxaan ugu saadaan inuu kor aadi karo ma jiro sababtoo hoostaana la sii jibiyey trendi saxa lagu sii socday halkan ayaa xitaa la sii jibiyey. So all the way inuu ku soo noqday wadi waxaan rajeynaynaa kan ilaa isniinta inuu halkan uu tago markuu si fiican usoo buuxiyo oo halkan imaado meelahan and then sidaas ugu noqdo all the way down trend-kan uu imaado oo ah meeshaan meel maaragtay supply ah demand ah oo u baahan in lasoo asturo. So halkan inuu imaado ayaan rajeynaynaa and then weli waxa lagu dhex jiro waa 1 hour-kii. So korkaan iyo hoostaan lagu jira. So 1 hour-kan marka waxaa sugaysaa in trendigan kale hoostaan imaado in la dhameeyo asagana. So haddii intuu meelahan oo kale uu suuqu inoo imaado and then trend uu noogu imaado like this lower low lower high lower low lower high lower low lower high saan camal loogu imaado asagii in la dhameeyo ayaa rajeynaysaa oo meelahan dhan korkaan iyo korkaan hoosta laga cuno and then lagu soo noqdo and then all the way upkaas markaas outline karna. Laakiin haddii inta hoostaan la imaado daaragti aan meelahan oo kale markuu samaysto aan la jibinin suuqu oo toos u sii socdo still hayadana hoostaas ayaanu sii garaaci doona. So AUDSD tradekii jimcadii ayuu ahaa hayadii USD kaada arkayna ayadan
so tradekan ayadana waxaa ujeeday tradekan ayadana waxaa ujeeday imbalancegan in qasab ahayd in lasoo buuxiyo oo ahaa candlekan meeshuu soo dhaafay intuu kusoo dhawaado wax yar ayuu ka noqday isagoo soo buuxini so mar walba imbalancena suuqu sameeyo waa qasab inuu soo asturo oo suuqu soo buuxiyo halkaas so 1 hourkeedana ayadana waxaa ujeediin inuu lower low yahay, lower high yahay, and then lower low kale yahay, and then nasiinadiisi yahay, and then oo kana hoos kale tahay, and then halkan waxaa rajeyneynaa marka in hayadana uu suuqu uu sidaas u tago kadib markuu suuqa halkaas uu sidaas u tagana hoostan hoose oo halkan ah lasoo asturo lasoo dhameeyo and then lagu noqdo and then all the way doonkan lasoo aado so intrigeena ugu dhow oo aan gaadayno maxaa la yiraahdaa maalinka isniinta hadduu eebaawadala idmo waa AUDUSD USD card sidoo kale hayada laftirkeeda waxay imaatay meel xasaasiya maadaama maaragtay inkastoo laakiin USD card sida AUDUSD oo kale uma dhowo sababtoo ah hayada waxay meesha ka saartay hoostan oo ahayd meel imbalance ku jira oo la rabay in suuqa la istaajiyo so hoostiisa ayaa lagu xirmay marka aragtay hoostiisa in lagu xirmay waa adag tahay in kor loo soo noqdo so waxaa sugaynaa ayada inay ilaa aagan hoose ay tagto waxaana saameyn kara USD kiswaay hadday isdhamaystirto ayadoo aagan isku dhamaystirto sidaas ayaan rajeyna haddii ay noqon weydo even ay hoostan ku xiranto oo ah meel ka hooseyso maaragtay dhimaankeena waxay noqonaysaa in wax yar buulbaaga soo bixiso all the way hoostaas aado so hadday iskhilaafto iyo haddii aysan iskhilaafinba waxaan ka arkaynaa insha allah suuq siduu isku wada dhamaystiro laakiin insha allah ani fikirkii waxaan u oleyn doonaa in ay meeshan ay ahaato meel maaragtay liquidity ah saas ay u ahaato liquidity halkaan ay ahaato suuq qaadi doono and then inkastoo umaleysa inuu qaaday laakiin is ahayn and then one more move oo up ah ay sidaas nagu siiso ayaa maaragtay USD card aan rajeyn doonaa haduu eebaa awoodda la idmo so sidoo kale waxaa halkaan eegi doonaa JBP USD iyaduna waxay ku jirtay ilaa iyo halkan correction yar oo maaragtay si oo yara dhamaystirneed so mar hadda intaan aragnay ani JBP USD waxaa isleeyahay sida Euro USD oo kale amay sameysaa oo ah inay maaragtay doon tareen soo aado haatan JBP USD waxaan rajeynaa inay sida Euro USD oo kale doon tareen soo aado maadaama halkan imbalance yahay meeshan meel la dhaadhaaf waayo lagu noqnoqonayo ay ahayd liquidity yar halkan uu ku jiro oo maaragtay isha u baahan in lasoo dhamaystiro so waxaan is leeyahay meelahan ama halkan supplygan ah ay kasoo daadataa ilaa iyo isniinta gelinka dambe so all the way doonkan ay timaadaa kadibna ay saas ay noqotaan is leeyahay haddii ay noqon weydo inta soo jebiso hoosna laga soo hoosmarane waa dhimaanyadan kale waxaan usii ololeyno is dhihi karno oo ah ilaa halkan way gaari kartaa so iyadana maxaa la dhahaa JBP USD saas ayaan ka rajeyn doonaa lacagta kale meeshan ku jirto waxaa waaye lacagta la yiraahdo isheeg JJ hayadana waxaan ka rajeyn doonaa isheeg inay noqoto lacag intrina siisaa maxaa la yirahdaa maalinka isniinta maadaama ayado waxay uga duwan tahay JBP USD oo kale iyo Euro USD oo kale farshaxankooda meelaha kuwaas ay rabaan inay soo noqdaan hayada halkan inay jebisay oo korkan ka dulmartay si official ayaa ujeedaa oo ah halkan in si toosa looga dhexbaxo la jebiye ayaa ujeedaa korkooda lagu xirmay soo suuqa hadduu furmo oo isniinta habeenkii ilaa London inuu all the way korkaas uu sii aado and then ay soo noqoto meelahan ilaa halkan xitaa and then all the way up train sidaas ayaan maaragtay JB aan uga fadhiya insha allah waxa intaan isla fiirin doono waa intaas tarideeda aan shaqeyn doono wixii kaloo usboonaado oo intri ka soo baxo mise fikirkeyga wax iska bedelaan marka suuqu obi noqdo
ayadan insha allah updatekeeda waxaan kusoo diri doonaa bartaas iyo telegramka. soo haddii aa u baahantay mise muhiima oo aragtid waa ka faa'iidaysan kartaa. soo dhawaada dhammaantiin intaan muuqaal lamida ku kulmi doono. waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.